وسلامتين دمانتين كوسو دواده xubintan oo aan ku eegayno waa maxay war aqriyaha wanaagsan maxaa looga baahan yahay arrintan ayaan jeclaysanay in barnaamijkan aan ku soo qaadno sababtoo ah waxaan aragnay inay muhiim u tahay dad badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo saxaafadda ku jira haddii aan lahayd raadiyaha haddii aan lahayd TV-ga haddaba waxaan eegi doonaa qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay inuu sameeyo war aqriyaha wanaagsan iyo qaabka ay tahay in wax loo aqriyo waxaan kala qaadanaa laba qaybood qaybta telefishinka iyo qaybta raadiyaha balse marka hore waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha ay wadaagaan xulashada warka iyo qaabka u kala horeynayo caadiyan waxaa soo diyaaraya newsroomka ama qolka wararka waxaana sida warka loo kala xulanaya badanaa diyaariya tafatiriyaasha iyo madaxyada wararka dadka wararka ku shaqada leh war aqriyaha waxaa loo keenaa ama loo dhiibaa warkii oo diyaarsan iyo sida ay kala horeeyeen waa laga yaabaa ama waa muhiim inuu talo ku darsado haddii uu arko in wararka la kala hormarsiiyo laakiin badanaa qaabka warka u kala horeynayo iyo sida la iskugu xijinayo waxay ka soo baxdaa qolka wararka oo tafatiriyaasha ayaa soo diyaariyo soo eega maxaa marka looga baahan yahay marka gacanta laga geliyo warka inuu sameeyo war aqriyaha ka hor intii aan stuudiyaha la gelin aan warka la aqrin waxaa loo baahan inuu sameeyo silent reading inuu isaga warka aqriyo horta inta warka la gelin uu isagu naftiisa warka u aqriyo isagoo degan warka hoos u aqristo dhuuxo waa inuu fahmaa warka taasi maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay wax aad adigu fahansantahay marka hore ayaad dadka u sheegi kartaa haddii uusan waryuhu fahansaneyn warka meesha ku qoran sidee ba dadka u fahansiin karaa marka hore waa inuu isagu fahmo uu aqriyo dhuuxo dulucda nuxurka sidoo kale waa in uu iska eego ereyada meesha ku qoran haddii ereyada qaar fahmi waayo waa inuu weydiiyo nuxurka ereyga lagaga dalan yahay maxaa dhacaya haddii wariyaha erey uusan fahansaneyn macnihiisa uu aqriyo warka ku daro waxaa dhici karta in uu nuxurka ka dhumiyo inuu ku dhawaaqi waayo ama nuxurkii laga wada garan waayo sidaa daraaddeed waa inuu weydiiyaa qolyaha wararka ereygan muxuu yahay maxaase la micnaa si u fahmo waxaa loo baahan yahay inuu ku aqriyo codkiisa degan oo caadiga ah neutralka cod degan hase ahaatee activa macnihiisu waa waxay cod degan haddana nool inuu qayliye ma ahan shanqaro laakiin codka waa inuu degan yahay inuu aada u hooseeyana ma ahan halkaa warkaasi ka dhageysanaysaan ama waxaa ka imanaya magaalada muqdisho ma ahan inuu warkii ahaado war cod degan hase ahaatee activa oo nool inuu ahaado iyo inuu ka fogaado ereyada la yidhaahdo filler words ama ereyada buuxinta filler words waxaa weya in qofku ereye buuxina isticmaalo arrintan badanaa saxaafadayada Soomaaliyeed way samaysaa waan ku arkay TV-yada raadiyaha kulli waa sameynaa waa maxay ereyada buuxinta waa inuu qofku kelmado u ka buuxiyo warka dhexdiisa meelo bannaan tusaale ahaan aan aqriya hadda aan isku dayo inaan tusaale soo qaado 10 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen markaasi xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaasoo markaasi la sheegayo in koox ka tirsan shabaab ay xabsiga dhexdiisa ku dagaalantay taasoo markaasi sababtay maxaa halkaas kaga muuqda waxaa halkaas kaga muuqanaya in aan ereyo ka buuxinayo ay ka mid tahay halkaasoo markaasi taasi waxay dhuminaysaa nuxurka hadalka iyo warka hadalka waa inuu ahaado mid nuxur leh oo la fahmi karo macnihiisu cad yahay 10 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacantay kadib markii koox xabsiga ku jirtay ay heleen hub inay la dagaalameen ilaaladii xabsiga kuma jirto erey lagu buuxiyay markaasi ama saas waa inuu marka nuxurka cad yahay dadku fahmaan waxa war ugu xun in wixii aad sheegtay dadku garan waayeen dhahan war muxuu sheegay waa in la fahmo waxa warkaagu ujeedadiisu ay qeexan tahay caddahay warka waa in laga ilaaliyo luqadaha suuqa luqad kasta way leedahay dunyada in laga ilaaliyo warka oo lagu aqriyo luqad la fahmi karo oo caadiya qof kastana fahmi karo ma ahan inuu qofku isticmaalo ereyada adag ereyada gabayda ku jira gabayda hore kale ma aha waa inuu isticmaalo af Soomaali ama wax la fahmi karo oo nuxur leh af Soomaali la fahmi karo cid kasta ay fahmi karto mar kasta oo ereyada warkaaga ku jira dadka aysan fahmi karin waxaa dhimanaya nuxurka warkaaga
haddaba waa inaa isticmaashaa af soomaali dhexdhexaada oo la fahmi karo qof kastana uu fahmi karo oo af suuq ha isticmaalin af sugarin ha isticmaalin warka ha ka dhigin sida gabay oo kale dhiiggii ka dhacay muqdisho dad baa ka dhiidhi something like that wax saas oo kale ah war suuqeed macnaha hadal suugaan ka wadaa ha ka dhigin war suugaaneed ereyga sida gabayada suga ama heesaha kale warkiisu noqon erey suugaaneed dagaalkii ka horreeyey deertii hore dhacay dadkii ku dhintay something like that wax sugaan camal amaba war suuqeed waxaa lasoo sheegaya macnaha wararka suuqa camal ereyada oo waa lagu daadiyey ciidanka dowladda wasiirka arrimaha dibadda ku daadiyey soomaaliya erey saas oo kale ah war suuqeedkan ka wada raalli ahada dadku caadi u isticmaalaan waa inuu ereyadu ahaadaan kuwa nuxur leh oo cad nuxurka ay sameynayaan lana fahmi karo taas waxyaabaha guud ay wadaagaan tv-ga iyo raadiyaha hadda aan kala qaadno aan ku horumarno raadiyaha wuxuu ku fiican yahay ama uu isagu laguma jeeda adiga muuqaalkaaga cid ku arkaysa ma jirto indhahaaga iyo gacmahaaga saasiidas wejigaaga suu yahay qof ku jeeda ma laha laakiin culayskiisuu leeyahay dadka waa in warka aad deeqsiisaa dadku ay ku dhegeysanayaan halka tv-gu dadka inta badan ay ku mashquulayaan sawirada meesha ka muuqda iyo muuqaalada laakiin raadiyaha dadku waa ku dhegeysanayaan dadka waa inaad ka dhigtaa dhexgeysaa sheekada aad sheegaysid dadka waa inaad u sawirtaa waxa meesha sheekada ka sheekeynaysid waa inay u caddahay kelmadaha waa inaad si degan oo sharxan u aqriso waa inaad kala goysaa warkaaga waa inaad warkaaga dejisaa adaan moobsiin dejisaa codka maaha in codka hooseeya maahan codkaaga active aado laakiin ha boobsiinan warkaaga deji markaa ka baxdo baragraaf midka kala gelaysid waa inay kala caddaato waa inaas dhex gelin waxaad ka hadashay dagaalka xabsiga dhexe ka dhacay waxaa ka hadlaysaa golaha wasiirada oo baaritaan waa inaa warku kala cad yahay baragraaf inuu dhamaaday mid kale bilaabas in la fahmo weeyaan waa inaad ku leeyahay baragraafada dhexdooda waa inaad ku neefsan waa neefsan kartaa markii baragraaf aqriso kan kale adoo naftaada controlay waa inaysan ahaan mid dadka raadiyaha dhagaha ka jibsada ku maqlaan taasi waa mid waa in ereyada ugu dhawaaqdaa si buuxda oo ereyada aadan dabagoon ereyga waa inaad dhamaystirtaa si buuxda ugu dhawaaqdaa ereyga hadalka waa inuu si buuxda u dhammaado waa tahay waa inaad isticmaashaa luqad la fahmi karo oo dhexdhexaada luqaddaada dabiicigana aad aqriso aad warka ku aqriso taasi waa raadiyaha tv-ga aan gudubno waxyaaba badan ayay wadaagaan sida in aad warka sii aqriso codkaaga baraad ku samayso laakiin maxay kaga duwan yahay tv-gu tv-gu wuxuu kaga duwan yahay raadiyaha warkaaga warqad ayaa ka aqrinaysa inkastoo loo baahan yahay inuu qofku marka hore xataa uu isku dayo inuu xifdiyo ama raadiyaha ahaado ama tv ahaado inuu xifdiyo wararka qaar inuu qofka xifdiyo muhiim tahay haddana tv-gu muxuu taa kaga duwan yahay tv-yada shaashad ayaa dambeyso oo warka laga aqriyaa saas ay tahana haddana qofku waa in uu warka aqriya dadka tv-gu waxay daawanayaan muuqaalkaagii waa in aadan dadka ka nixin aadan naxsanayn qof naxsan aadan u fiigsan aadan u muuqan waa inaad si dabiici ahaato oo sheekeynaya tv-ga fiirinaya waa inaad ka dhigtaa hal qof oo kusoo hor fadhiya oo u sheekeynaya sidoo kale adigoo isdejinaya si dabiici warka u aqrinaya waa in indhahaagu ay meelaha kale firfiirin aadan qalqal kaa muuqan waa inaad kaamirada fiirisaa si degan oo dabiiciya oo ayar in u aqriso ayaa loo baahan yahay mar kale ka dheeraaw ereyada la buuxinayo oo meelaha laga buuxinayo sidoo kale la soco marka aad uu soo dhaco war degdeg oo kale tv oo kale in aad oo qofku noqdo qof maskaxle waxay muhiim u tahay inuu qofku hore ka sheego wixii loo sheegay uusan qofku qalqalin markuu kaamilada hor fadhiyo qofka aad baa mahadsantihiin